السلام عليكم أصحابتك سو dhawaada janalkeyga waa xilka saxiis oo idin leh asxaabe baartitu waatana nadaafadeeni way socotaa asla socod wanaagsan saa u jeedin hadeertaan filinjeerkii alaabihii wixii dhanaan ka bixiyay hadda waan tirtirooyaa saa u jeedin gacanta marinooyaa marka wuxuu ahaayay nadiif inaan kasoo dhigaan rabaa filinjeerka waxaa waaye inaa markasta gacanta la iska marsiyaa laakiin marmar inaa alaabaha dhan ka bixisid oo wasaqda meesha ay ka galayso dhan iyo meelaha luqluqmanka inaa gacanta iska marsiisid way fiican tahay nadiif ku noqonaya markaas haduu ilaahay karaale noqdo waxa dhan dhagdhaga kasoo dhigaysaa insha Allah isla socono hooyo fadhiga ka kac ila shaqeey insha Allah soo socon ku dhacaagaaga biyaha kabdhakab ku soo siiso dhexda soo xiro waxaan ku dhahay kaale ila shaqeey ila nadiif guriga hadda talaajadii dhexda dhan waan kasoo nadiifiyay haddana albaabka u xiro waa u jeedin albaabka dushiisa iyo meelahaas oo dhan aan tirtirooyaa hal gacan kaamiradiisa ka duubooyaa hal gacan waxaan rabaa inaan meesha ku tirtiro inta xooga ahayd waan soo mooday marka hadda waxaa waaye anaa tartiibkeyga inaan beej idin tusaan rabaa meelaha aan tirtirooyo hadda dhalooyinkii maaragtay aan soo dhaqay qaanadihii oo filinjeerka loogu talagalay hadda waan soo dhaqay waan soo qalajinaya waa ujeedin maradaas nadiifta oo baatigahan soo qabsaday biyihii aan kaga qalajinooyaa nadiifaan ka dhigayaa booskoodan ku wada celinayaa tuti waan soo dhaqay videoguna wada ku dheeraadan diidayay wasaqay ahaayeen hadda waa kuwaasa ugu dambeyn waa soo geliyay wuxuu ahaayay qaanadihii filinjeerka waa ku soo celiyay ayagoo nadiif ahaan ku dhahay tartiibkaaga adeegii wixii ka maqan iyo wixii kale tood hadeertaana kala risaysanaysaa gurigaaga adigaa hooyo ah adigaa loo baahan yahay inaa istaagtid oo gurigaaga waxaaga dhan nadiif ka dhigatid oo gurigaaga ku mashquulshid oo meesha wasaq ka iyo meel wixii ka dhan inaa iska nadiifisid ugu dambeyn fridge-geeni saasoo noogu soo baxay haddana maadaama qudaartii oo filinjeerka hadaaya markaa hagaajinaya aan ka bixiyay aan rabaa inaa maaragtay aan dhaqo qudaarta oo booskeeda ugu celiyo maadaama aan meel inta ku gudiyay ee banaanka cabaartiilay haddana baastimiirkaasaan kusoo shubay qudaartii waan soo wada dhaqayaa waa u dhaqayaa markaan u dhaqo biyahan ka miirayaa iyadoo nadiifa filinjeerka ugu celinaya cunugaaga hadhowta tartiibkiisa hal xaba dhag haduu soo siisto maba u baahno wasaq iyo waxaas dhan uga mashakinaysid maadaama aan fridge-kii wixii dhan aan dhaqaayo oo banaanka alaabta aan usoo saaray ayadana horaan gacanta uga marsiiyay baastimiirkaasaan ugu shubay waa u dhaqaa waa u nadiifinayaa kabacdina booskeeda ugu celinaya marka hooyo ayada gurigeeda iyo wixeeda maaragta kala nadiifsato hooyo inay maaragta mar walba ee iska istaagsanaato ee gurigeedii ay u istaagto wixii kaa maqan wixii kaa wasaqa wixii maaragta kaa dandareysan waxaasoo dhan ishaa ku qabanaysaa laakiin markaa maaragta gacmaha isdul saaratid oo maaragta fikir iyo caajis isgelisid waa wareer ugu dambe qudaartiina waan dhaqay dhag aan ka dhigay booskeedaan ugu shubayaa hadda waa ujeediinsaa nadiif uga dhigay biyihii aan kasoo hooriyay haddana booskeeda ugu gadinoyaa waa ujeediin marka kadib waxaan sameyneynaa haddana haddii inta aan nadiifiyey oo qudaartii wixii aan kusoo celiyey microwave-kana inaan isna iska nadiifiyaan rabaa microwave-kaasaan rabaa inaan dhaqo asigana waa taqaanaa ciyaar marka wax lagu kulleysanayo asidan dandarada ka muuqata maleysan kartid saas deetaa isbuuc walba gacantaana marsiiyaa haddii aan gacanta lagu helahayn yaaba fiiri lahaa isdhan madoobaad uu noqon lahaa marka waa kaasa asxaabe waxaan rabaa asigana inaan dhaqo oo nadiif aan kasoo dhigo oo maaragtay saxankiisiina waa qaaday maqsalada kusoo riday asna waa soo dhaqayaa insha Allah haduu ilaahay ka raali noqdo hadda waan dhaqoyaa saa u jeedin meel walba aan ka tirtirayaa ciyaalka waxaa waaye nambarkii intay geysanayaan gacmiyo wax ku dhagdhagan yihiin meel kasto inaa ka dhaqdid oo ka nadiifisid waaye marka asxaabe ila shaqeeya soo socda dhexda xirta nadaafada dhagdhag laga soo siiyo guriga iska nadiifi hooyo isku filan inaa tahay oo kara ah oo meel kasta maaragtay kasoo taagan oo meel walba ka dhisan inaa naqatid oo hooyo ballamaheeda ilmaheeda iyada geysato waa iswada ogna haddii hooyo unbaa dhaqtar taagan meel kasta hooyaa taagan meel kasta hooyaa ma fahanteen hadduu xataa ninkuu joogo oo isla joogteen ninkii magaalkaasu bariiska burinaya liisma arkaayo waa annagaa loo baahan yahay inaa istaagno oo hoosheena iyo danteena qabsano haddaa hooyo kaligeed tahay kaba sii fiican ooba hadda nin uusan kuga xariirinba tartiibkaagaan ku dhahay shaqadaada qabsanaysaa bilaa stressaan ku dhahay gurigaaga hagaagsanaysaa waxaaga dhanaa nadiifsanaysaa ciyaalkaaga waqti la qaadanaysaa ma fahanteen haddaa hooyo kaligeed tahan horuu soco haddaa hooyo caruur iyo odaba isku haysata tahay soo soco labadaba guri nadaafadiisa labadasba kuma xirno ila shaqeyso soo soco caagaaga biyo kusoo shubo jikada dhinac kasoo saaro biyahaaga dhag isku sii biyahaaga cadcad hooshaadana qabso nadaamso hooshaadoo dhan marka gurigaaga ka warheysid oo wixii kaa wasaqi iyo wixii kale u warheysid maaragtay kaala arag iska noqonayaan meel kastana maaragtay inaa ciyaalka ka nadiifisid way fiican tahay haddaa ciyaal ku daynaa dhahdid waa isku wareereysin adiga iyo ciyaalka
marka insha Allah asxaabay waan ku mahadsantihiin sida quruxda badan oo runaanta ay la socotiin aan ku dhahay sida maaragtay fiidiyoyaasheeda u xiiseynaysiin insha Allah waxaa idinka codsanayaa fiidiyooga haddaad daawatid inaad like ii saartid insha Allah hadduu ilaahay ka raali noqdo commentigana dhiirigelin uu ii yahay asxaabay waan ku mahadsantihiin commentiyadiina quruxda badan leh maasha Allah aan ku dhahay aad iyo aad ugu farxay waa mid ii dhiirigelisay oo anigana inaan hore u socdo maaragtay sabab u ah alxamdulilah ilaahay maad u sugnaatay waa ujeedin shaqadeeni way noo socotaa meel walba aan gacanta ka marinaya waxaa waa hooyo ilmuu leeyahay haddaa taa ma sahlana shaqada videoga marka lasoo duubayo hoosha lasoo qabanayo markii la daawanayo sahla umaleysaa wallahi midda laga soo maraya ku dhehe ma maleysa kartiin laakiin saastee taa adoo laba kolba haddaa video duubtay haddaadan duubinba shaqada gurigii waa mid kuu taalo marka hadda asiga dhan waa soo nadiifiyey booskiisaan ku celinaya hadduu ilaahay ka raali noqdo waa kaas ugu dambeyn waa soo nadiifiyey booskiisana waan soo dhigay quruxdaas uu kusoo baxay meesha soo albayiile hadaaya aan kasoo qaaday haddana booskiisa ku celiya nadiif uu ii yahay filinjeerka nadiif uu ii yahay dhankii iyo albaabadan soo aadna waa ujeedin asxaabay albaabka meesha laga qabto waa meesha ugu daran waa ujeedin daawadaas ku buufinaya muxuu ahaayey ciyaalka musqusha waaye waa ujeedin marka waa tirtirayaa meesha ciyaalka ay qabsanayaan markay suuliga kasoo baxaan marka maaragtay ay sii socdaan sii furitaankii iyo albaabka meesha laga qabanayo iyo albaabka dhan iska tirtira haddana uu cad yahay ciyaalka gacmooda suuga loo kaleetooda lagu taataabanaya inaad tirtirtid nadiifisid oo waxaasoo dhan maaragtay dhan walba ka diyaarsanaatid waxaa waa asxaabay way fiican tahay waa idinla soo sheergaray karaa haddaa iiga soo baahatiin waa isoo weydii kartiin qaabka aniga aan wax u kala waxeysto oo wax u kala toosisto oo jadwalkeyga iyo wixeyga dhan uu ii yahay haddaa u baahan tahay commentiga iigu soo qor waqtiga aan soo tooso sida aan wax u qabsado sida xaalkeyga yahay inaan kasoo hadlo haddaa jeceshiin insha Allah commentiga iigu soo qora asxaabe hooyaan ahay been idima sheegaayo dhowr caruura ay joogto alxamdulilah walahi anin la hoyteeyo macnaha ani kaligeyga haayo anigaa meel walba u taagan anigaa wax kasta sameeyo macnaha aabahana shaquu jiraa xumaan ma ahan ma fahmin oo comment qaldan yaa laysku soo qorin ma fahanteen aabahana shaqo leehuu jiraa mooye xumaan ma jirto asxaabta waa kaasaa soo dhawaada hala soo dhawaada insha Allah nadaafadeennina way noo socotaa aan ku dhahay commentiyadana qaara xun ay soo qorayaan laakiin inta oo wanaagiga maaragtay inta xun lagu hilmaamaya asxaabay aniguna waa idin jeclahay waxaa tihiin familkeyga dhiirigelina idin wada anina hore u socotiinan jeclahay wax walba maaragtay sida ciyaalka isfahanka iyo qaabkii iyo noloshii sidee tahay wax walba inaad kala soo hadlo waa jeclahay waxaa hadda u istaagayo oo hoosha gurigii aan ugu mashquulayn inay hooyooyin badan maaragtay ay iyagana intay istaagaan ay gurigooda hagaagsadaan oo ilmahooda nadiifsadaan oo dharkoodii iyo ayagii wix dhan ay ka warhayaan waa aad iyo aad wax wanaagsan wallaahi markaa guriga ku mashquulshid hoosha markay kuu buuxdo oo fadhidid le caajisay maahane mar haddaa dhexda ka geshidaan ku dhahay inaad ku dabaalatid aa rabtaa ma fahamtid maxay u dhamaataa dhehe maxay u dhamaatay because adaa istaagay dhexdaa ka gashay inta ka qabo geeskaa fiirisid nadiif inta fiiri qurux guriga geeskan fiiri nadiif sariirtan fiiri qurux fadhigan fiiri qurux ada dhan hore oo sii soconaysaa ma fahamtid laakiin markii wix dhan iskugu kaa daadsan yihiin ada dhan istuuf madaxa dhanaa ku xanuunayo ciyaalkii kuu dheer yihiin waa dareemi karaa hooyaanahay waa la daala alxamdulilah ilaahay awlaadana hana la koriyo ilaahayna noo xifdiyo meel walbay joogaan asxaabteyda waa idin jeclahay waana ku faraxsanahay sidaa mar walba ay ila socotiin meeshaan aan ku suuxooyo aa ujeediin aan tirtirooyo aan ku dhahay gacan le suugu taalmaa lagu qabtay cuntamaa ku taala ma ogi cijoodhi ka dhan ay xanuunaysaan jag ugu hayaan ku dhaha oo ka bixbixinoyaa wasaqada kaamiradan hal gacan aan ku hayaa hal gacanna albaabka wuu xiran yahay waa duuboyaa marka waa kaas asxaabay meel kasta ka nadiifinaa hadda qaybta hoosan tirtirooya aan leena kaamirada haayo seena biriis ayaa hoosteeda taagan oo geedka aan daawada ku buubuufsanaya gacanta ku haysa meeshan qalajiyaba iyada biyo igu sii buufinaysa waxay taagantaha hooyo dhaq codka gadaalan kasii saarooya marka waa idin jeclahay asxaabteeda soo dhawaada dadka cusubo asxaabteeda soo dhawaada inta nala joogi jirtana waxaan ka codsanayaa videogana like noo saarteen maninkiina waaye inaa comment qurux badan kasoo bixisiin asxaabtiinana aala sii wadaagteen insha Allah marka waa kaasaa albaabada xoogaa way isku wada egyihiin qayb kaleetoodan hadda tirtirooyaa oo kulli maaragta way isku wada egyihiin meesha laga wada qabto haddana waxaan aasanaynaa qolka dharka waaye meeshaan wuxuu ahaayete albaabkiisa waaye
waa qolka ciyaalka oo maaragtay baqaarka dharka aan ku xareysano oo armaajooyinkeena ay ku jiraan oo dharka lagu xareysto asna waan tirtirayaa waa meesha ugu daran oo ciyaalka maaragtay mar walba ay usii socdaan oo waxaa laga soo baxsanayaa gacmihiyo wasaqe walaahi aan war idinku daalin naftirkeyga waaba daala basaan hoolle ugu jiraa ku dhamaanta daalka adduunkan dareemoyaa asxaabe beri insha allah waa axad hadduu ilaahay ka raali noqdo hadeertaan maanta aan videoga aan duubayana waa sabdi isla sabdidii hore idinkaga soo gelinaya haddaan codka saaraya hadduu ilaahay ka raali noqdo beri oo axadana insha allah maadaama hadda maanta aan albaabadii iyo jikadii iyo guryihii iyo wixii oo dhan aan iska nadiifiyey beri ciyaalkii iyo maaragtay iyo waxaan ka fikirayaa kaliya waxay iskuulka u qaada lahaayeen iyo dharkoodii iyo wixii aan kala agaasimanaya waana idinla soo wadaagaya hadduu ilaahay ii suurtageliyey insha allah albaabka banaanka oo laga soo galaya imaanay ugu dambeyn waa ujeedin asiga naftirkiisa gacanta iska marsiinooya waa albaabka asigana meesha laga baxo oo mar walba socodkiisu uu badan yahay meelaha ugu wasaqda badanna waa meelahaas inta kale xoogaa waa iska nadiif marka waa kaas asxaabe iyo meesha maaragtay jaraska ciyaalka oo iskaga ciyaarayaan meelahaas oo dhan gacanta toos usii marsiiyey marka alxamdulilah shukr rabbil caalamiin gurigaygaas iskaga mashquulaa caruurteydaas iska dhex fadhiyaa haddii aa caruurtaada iska dhex fadhidid oo gurigaaga dhex fadhidid waxba yaadan qabanin haddaa rabtid waxaa ogaanaysaa gurigaagii meesha uu maaragtay ka qaldan yahay iyo wixii kuu toosan ilmahaaga ku dhex jirtaa walwal ma qabtid geedkan aa idinla sheergareeyo waxaa waaye geedkan caruurda kuu joogto muhiim waaye inuu guriga uu kugu dhegnaado ana asoo ku dheganaaba soo degay hadduu isu ku dhegnaan lahayn xitaa waa ku dhegsan lahaa laakiin hadda asoo ku dheganaa soo degay meeshaas aa gashanaysaa cunuga markuu albaabka fag iska siiyo ma awoodo inuu ka baxo albaabka saas markuu u furo cunugii meesha kama bixi karo kama walwaleysid hooyo ilmooleyaa tahay ciyaalka iriday furaayaan qaaraa ayagoo waaweyn bannaankay aasanayeen albaabkii kuu laaban ay baxayaan adi bili aadanaa taa qolkaa iska soo geli kartaa cunugii riisaa haysataa cunuga hadduu inta gurguurto uu bannaankaaga baxo abbaayaa kuu maqan cid kuu maqan mala hooyo 10 indha isku yeel